galab wanaagsan daawadayaal. Ra'iisul Wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan ayaa maanta waxa uu kala diray baarlamaanka dalkaas. Baarlamaanka ayaa maanta u ballansanaa inuu xilka qaadis ku sameeyo ra'iisul wasaaraha, waxaana wararku xaqiijiyeen ra'iisul wasaaruhu inuu ka war helay horena uu ogaa inuu xilka waayayo maanta haddii uu ogolaado in ay baarlamaanku kulmaan. Gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka dalka Pakistan ayaa waxa uu diiday inuu gudoomiyo kalfadhiga, waxaana uu ku tilmaamay inuu yahay mid aan waafaqsanayn dastuurka dalka Pakistan. Ra'iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in dowladda Mareykanku ay ka dambayso in xilka laga qaado. Waxa uu ra'iisul wasaaraha Pakistan caan ku yahay inuu ka soo horjeesto siyaasadaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka. Sidoo kale waxa uu si aad uga soo horjeeday weerarka Mareykanku ugu magac daray la dagaalanka argagixisada oo uu ku waxyeelayo dadka Islaamka ah, taasoo ra'iisul wasaaruhu in badan ku sheegay inay tahay mid uu ku ugaarsanayo dadka Islaamka ah. Halka laga raacay ra'iisul wasaarahan ayaa waxay ahayd markii dhowaan uu la kulmay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin, kaas oo uu ku booqday dalka Ruushka. Wariyaha BBC-da uga soo warrama dalka Pakistan waxa uu sheegay 2008 xilka markii uu qabanayay ra'iisul wasaarahani in uu garab weyn ka helay xilkan ay ku fariisiyeen ciidamada militariga dalka Pakistan oo ah ciidamo ku leh dalka awood kana mid ah ciidamada ugu awoodda weyn adduunka. Waxaase ay xisbiyada ka soo horjeeda heleen jaanis ay xilka kaga qaadaan kadib markay is urursadeen una heshiiyeen inay xilka ka qaadaan ra'iisul wasaaraha, taasoo ugu dambeyn ay ku guuleysteen inay helaan kooram dhammaystiran oo xilka kaga qaadi karaan. Subaxnimadii hore ee saaka Axadda, wasiirka warfaafinta dalka Pakistan waxa uu sheegay in dowladdiisu ay heshay akhbaar ah in la doonayo in dowladda dalka la bedelo ayna ka dambeeyaan awoodo shisheeye, taasoo ula jeeday dalka Mareykanka. Isla markiiba Mareykanku waxa uu gaashaanka ku daruuray inuu wax faragelin ku sameeyay arrimaha gudaha ee dalka Pakistan. Waxaase isla durbadii saakaba xildhibaanadii loo diiday inay xilka ka qaadaan ra'iisul wasaaraha qoraal rasmi ah u direen maxkamadda sare ee dalkaas, taasoo hubin doonta in xilka qaadista ay ku sameynayaan ay waafaqsan tahay sharciga iyo inaanay waafaqsanayn. waxaase la isku raacsan yahay inay tahay mid waafaqsan sharciga maadaama uu dhammaystiran yahay kooramkii baarlamaanka la doortay. Sidoo kale ra'iisul wasaaruhu waxa uu ku soo daadiyay ciidan aad u badan magaalada caasimadda Islamabad, goobaha ay dowladdu fadhido. Dhammaan xafiisyada dowladdu maanta waa kuwo aan si sahal lagu geli karin, waxaana magaalada lagu arkayaa ciidamo buux dhaafiyey. Warbixinuhu waxay sheegayaan in ciidamadii xilka isaga keenay ay hadda si buuxda uga soo horjeedaan taageersan yihiinna qolyaha doonaya inay xilka ka qaadaan. Waxaana uu ahaa ciyaartoy ciyaari jiray cricketka dalka Pakistanna aad looga jeclaa, waxaana xilligaa loo doortay oo ugu weyneyd inuu musuqmaasuqa wax weyn ka qabto. waayadii ugu dambeysay dadku si aad ayay uga soo horjeedsadeen ra'iisul wasaarahan, waxaana si aad u kacday maciishada dalkaas oo ah tan lagu nacay. Sidoo kale ra'iisul wasaaraha ayaan dadka siyaasadda indha-indheeya dalkiisa u dhashay ku qanacsanayn go'aamada arrimaha dibadda uu qaato. Dadka oo dhammi waxay ka warsugayaan ciidamada dalka Pakistan oo ah kuwo awood badan go'aanka ay arrintan ka qaadan doonaan, maadaama ay yihiin kuwii iyagu caawiyey markii uu xilka qabanayay. waxaase la sheegay inaanay maanta wax garaba siin doonin xilkan uu ka tegi doono Imran Khan kadib markii qoraal rasmi ah ka soo baxo maxkamadda sare ee dalkaas. dalka Pakistan 2 jeer oo keliya ayaa baarlamaanku xilka qaadis ku sameeyeen ra'iisul wasaareyaal ka talinaya dalka. markii koowaad waxay ahayd haweeneyda caanka ahayd ee Benazir Bhutto oo laga qaaday xilka 1989, halka marka labaadna xilka ay baarlamaanku ka qaadeen ra'iisul wasaare Shawkat Asiis 2006. waxyaabaha ay aadka uga caroodeen ciidamada dalka militariga oo maanta ka soo horjeeda ra'iisul wasaaraha waxa ugu weyn inuu diiday inuu saxiixo magacaabidii generaalka waxa ugu sarreeya hay'adda sirdoonka dalka Pakistan. dalka Pakistan ayaa waxa uu yahay dal leh ciidan aad u horumarsan, waxaana uu ku hubaysan yahay hubka waxgumaada ee nukliyeerka. sidoo kale goobta uu ku yaallo ayuu wuxuu ku leeyahay cadow iyo saaxiibaba. waxaa maanta siyaasadda gudaha dalka Pakistan ka socota indhaha ku haya dalka India oo ay wadaagaan cadownimo aad u dheer. sidoo kale saaxiibka uu gobolka ku leeyahay dalka Pakistan oo ah dalka Shiinaha waxa uu 2 maalmood ka hor ka digay ugana digay dalka Mareykanka faragelinta uu ku hayo dalka Pakistan. xilliyadii hore dowladda Mareykanku waxay daacad u ahay taageeri jirtay dalka Pakistan. dagaal walbo dhex maray Pakistan iyo Indiana waxay la safanaysay Pakistan oo ay siinaysay hubka noocyadiisa kala duwan. inkastoo xilligaa dowladda India ay ku xumeynaysay oo 100% hubka ka qaadan jirtay dowladda Ruushka, waxayna doonaysay inay gobolka ka hesho saaxiib ay isku halayn karto.
waana sida Maraykanka lagu yaqaano gobollada adduunka oo dhan inuu ka helo dal uu saaxiibnimo u sheegto kadibna uu ka weeraro dalalka kale dalka gudihiisa. waxaase ay aada isugu soo dhowaadeen Maraykanka iyo dowladda Bakistan xilligii kaligitaliyihii Parvez Musharraf uu ka talinayay dalka Bakistan, ahaydna xilligii duulaanka Maraykanku ku qaaday Afghanistan, markaasuu u baahnaa meel ay ciidamadiisu qalabka la maraan iyo dal uu isku halayn karo oo dib ugu guran karo. Afghanistan dhinacyada kale waxay xuduud kala wadaagtaa Shiinaha, Iiraan waxaana uu helay dalka Bakistan oo uu ka dhigtay saldhig uu Afghanistan ka weeraro. xilligaas ayuu waxa uu siin jiray dhaqaale aada u badan, waxayna garab badan ku siisay dowladdii militariga uu hogaaminayay xilligaas inay dad badan oo islaam ah Maraykanku halkaa ku dhibaan. waxaa kaloo dalka Bakistan uu ahaa meeshii ugu dambeyn ay Maraykanku ku dilaan Usaama bin Ladenkii ay doonayeen wakhtiga dheer. marka laga reebo argagixisada ay leynayaan oo ugu sarreeyay Usaama bin Laden, waxaa jira dad muslimiin oo Bakistan iyo Afghanistan ah oo halkaa ay ku dhibaateeyeen ciidamada Maraykanku markii uu soo dhoweeyay Musharraf ciidamadaas, inkastoo xilligii dagaalkaas soo dhammaanayay ay isku dhaceen. Bakistan ayaa iyadoo ah dal dimuqraadi ah oo wax doorta, laakiin haddana waxaa awood sare ku leh ciidamada kuwaasoo ay ku faanaan aanan ka maarmin, maxaa yeelay dalka Bakistan waxay ogyihiin inay Hindiya ku xeeran tahay, aadna uga weyn tahay in badanaana kama hor yimaadaan dadka reer Bakistan go-aamada ay militarigu qaataan, maadaama ay yihiin kuwa keliya oo isku halaynayaan ugu dambeynta. militarigaasuna waxa uu sameeyaa inuu ogolaado dimuqraadiyad inay dhacdo, ra-iisul wasaarena ay dadku doortaan, inkastoo la sheego inay saameyn weyn ku leeyihiin haddaanaba iyagu dusha ka talin. waxaa iska cad ra-iisul wasaarahan dabaysha xagaagu ku furantay inuu yahay mid iska tegaya, waxaana laga warsugayaa maxkamadda sare go-aanka ay qaadato. dalka laga hadlaya hadduu yahay dal ku hubaysan hubka waxgumaada, tallaabo walba oo khaldan oo la qaadaa waa mid halisteeda wadata. daawadayaal, wixii kasoo cusboonaada xaaladan ka kacday dalka Bakistan waxaad kula socon doontaan xogaheena soo socda. fadlan subscribe kanaalka, gambaleelkana furo. mahadsanid.